xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in maamulka loo dhisay deegaanka biyo cadde ee gobolka Shabeelle dhexe uu yahay mid ku yimid wada tashi. warkan waxaa magaalada Jowhar inaga soo diray wariyahayaga Liban Cabdulle Maxamed. xildhibaan Saadaq Mukhtaar Cabdulle oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda Hirshabeelle ahna wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ayaa baaq u diray war ka soo yeeray xildhibaan Yuusuf oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda Hirshabeelle. warkan ka soo yeeray xildhibaan Yuusuf ayaa ahaa wareegta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ahaa in deegaanka biyo cadde loo magacaabo maamul cusub. wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda Hirshabeelle ayaa baaq u diray shacabka ku dhaqan deegaanka biyo cadde in aan la mara habaabinin. bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. shirkiga jaraa'id maanta waxa uu ku saabsan yahay inaan iftiimiyo hadalla aan hadda ka arkay social media in xildhibaan oo saaxiibkeeya oo video iska soo duubay oo soo dhigay baraha bulshada ayaan rabaa inaan bulshada u iftiimiyo degan reer biyo cadde u iftiimiyo iyo shacabweynaha dowladda Hirshabeelle ku noolba dhamaantood kaasoo ahaa in xildhibaan Yuusuf oo dhahay maamulka maanta loo magacaabay biyo cadde loo magacaabay oo ku sheegay maamul aan la isku raacsanayn maamul dad gaar ah ay geeyeen maamul 4 qofood ay meesha geysay oo ku sheegay waliba asoo ku hanjabayo inay dhibaato ka dhici karto oo uu leeyahay wixii ka dhaca waxa mas'uuliyadooda qaaday madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha u magacaabay. runtii waxaan u arkaa arintaas iyada ah inay mudan tahay in loo iftiimiyo bulshada ku nool deegaan weynaha biyo cadde ku nool iyo dadka dhammaan Hirshabeelle loo iftiimiyo sida la socotaanba sidii dalka looga xoreeyay nimanka argagixisada ah waxaa la qaatay go'aan ah meel walba ee laga xoreeyo cadowga laga xoreeyo in maamul loo sameeyo. go'aankii dawladdu ahay in maamul loo sameeyo meelaha laga xoreeyay ay ka mid aheeday in biyo cadde deegaanka biyo cadde loo magacaabo maamul cusub loo magacaabo. xildhibaanku saaxiibkii wuxuu sheegay inaan xildhibaanada deegaanka aan lagala tashan arintaas aan lagala tashan in ay ayagu iska qoqorteen laakiin waxaan rabaa inaan bulshadeeda u cadeeyo in maamulka cusub ee loo soo magacaabay biyo cadde heer biyo cadde loo soo magacaabay oo yahay maamul runtii annagoo aan qornay ee aan u gudbinay madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha aan u gudbinay. xildhibaan Sheekh Yuusuf haddii asiga xurguf qof kala dhaxaysay iyo dagaal oo qof kula jiray ay la gashay inuu biyo cadde maamul loo magacaabo oo iska horkeena bulshada waxaan aaminsanahay inaan dadka degan deegaanadaas ee walaalaha ah qaraabada ah isku deegaanka ah dad wada dhashay ah inaan la isaga horkeeni karnaan aaminsanahay. qofku rabitaan wax waa rabi karaa laakiin waxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay ku mahadada qofkii wax uusan lahayn raadiyo wixii uu lahaayo lumiya. hadaa wax raadiso waa raadi kartaa laakiin laftirkeeda marka aad wax raadinayso wadadii aad ku raadiyaysa inaad hesho way meesha aad ka raadinaysa inaad taqaano way walaxan rabaa hadaan iskala aamusnaado ma suurtagelayso wixii aan rabay ma helayo wadiiqadii hadaan helin amba wadadii aan ku raadi lahaa hadaan helin ma suurtagelayso wixii aan raadinaa inaan helo. marka saaxiibkii waxaan leeyahay runtii waa nin isku fiican oo saaxiib aan nahay bulshadaas iyo deegaankaasna aan wada matulun ka soo wada jeedno halkii ay ahayd marka in horumarkooda iyo maamul in loo dhiso loo hambaleeyo oo lagu dhiirigeliyo dadkii u soo istaagay xilligan adag inay maamulaan in lagu dhiirigeliyo oo leeyahay waa maasantiin laguna garab istaago ay aheeday in gadaal looga dhigo runtii waa arin aad looga xumaado arin aad u fiican ma ahan wax laga qurxan yahay ay ila tahay. marka aniga ka xildhibaan ahaan maamulkaas raaliyan ka nahay waxaan rabaa sidoo kale inaan bulshada u iftiimiyo maamulka hadda la magacaabay 3 shaqsi ayuu ku kooban yahay
saddex mas'uul ay ku kooban yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda labada shakhsi ee gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo maaliyaddu labaduba hore u joogeen ayaga loo sii cusboonaysiiyay kaliya lama bedelin halka shakhsiga la bedelay waa gudoomiyaha kaliya gudoomiyahana runtii Sheekh Yuusuf waa wada metelna laakiin waxa uu malaynayaa si gaar ah ana u metelo maadaama marka aan shakhsiga asiga waa saddex hadda meesha u degan dad badan degan oo qaraa oo aawada degan meesha laakiin maamulka hadda saddex jufaa iskale oo uu qaybsan yahay asiga hadda wuxuu si gaar ah u metelaa gudoomiye ku-xigeenka amniga si gaar ah u metelaa runtii haddii aan lagala tashanin maba la dhihi kara sababtoo ah asigiyaa la sii magacaabo shakhsiga lama bedelin haddii markii ay wax concern ay jiraan in asiga iyo qaraabadu ay isu tagaan ee ay dhahaan ninkan shaqadan meeshan kama qaban kariin aan bedelin ay dhahaan isku soo raacaan ay bedelayaan u maleema hadda qof ku dhageyso ama ku haysata inay jirto marka saaxiibkii dib ha isugu laabto deegaanadaasna runtii maamulka loo sameeyay waxaan aaminsanahay inay mudan tahay in la garab istaago bulshada halkaas deganna aan la marin habaabin oo aan been loo sheegin shakhsi rabitaankiisana runtii ayaga laftirkooda oo garaad badan yihiin waa fahamsan yihiin waxaan aaminsanahay dadka meeshaas loo magacaabo hadda inay ku yimideen rabitaanka bulshada ay ku yimideen oo bulshada annaga waa ka warqabnaa oo waa wareysanay runtii waxayna inta badan ay aad u tixgelin ay rabeen in maamulka runtii ay yihiin dadkii ugu mudnaay ee maamuli lahaa dad muxtarimiin oo macquula inay yihiin diyaarna ay u yihiin in la wada shaqeeyaan ayay runtii muujinayaan intaa kadib xildhibaanka wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyay in deegaanadaas blacklist la geliyay waxaan aaminsanahay waxa hadda ka hor wixii lagu jiray inay ahaayeen halgan lagula jiray cadowga runtii dib u xoreyn lagu jiray dagaal lagu jiray meel kastoo dalka ka mid ah ayuuna ka socday dib u xoreyntaas ka socotay marka waxaan aaminsanahay inay mudan tahay xilligan wixii ka dambeeyo in loo wada jiheysto haddii ay macaawino tahay haddii ay digmooyin tahay haddii ay adeegyadii aasaasiga ahayd ee bulshada ay u baahneed ay tahay in la wada gaarsiiyo dawladda runtii hadda bilowday inay maamullo loo sameeyaan oo madaxweynaha stateku ugu horeeyo maamullo loo sameeyo dad meesha maamuli karo oo bulshadu ay rabta la soo gudbiyo lagu garab istaago wax kasta ee horumar ah ee deegaanadaas ka mid ah oo dalka ka socdane runtii la yiraahdo in anaga ma qaba in inta meel la istaaga la yiraahdo walaxa blacklist la geliyay dawladda aan ka mid nahay dawladda aan ku eedeeyayna anagu aan soo dooranay oo xildhibaanadeedii nahay marka wixii aan tabanayno oo culeys soo jiray inaan hoos isugu sheegno aanba maahane aan anagiiba wixii anaga gacanteena ku jiraan aan dhahno bulshadii saanan u baahannahay oo assessment laga sameeyo meeshii bulshadii meeshii loo tago maamuladii yani sababta loogu sameeyay maamulada waxay tahay meel aan maamul lahayn runtii shaqo laga ma qaban karo marka waxaan qabaa inay arintaasi runtii ay tahay in bulshada loo iftiimiyay ay tahay inahaas iyo ina kalentooda ay tahay runtii in la isu sheego aad iyo aad u mahadsantihiin runtii ma rabin inaan ka hadlo laakiin waxaan u arkay inay tahay marin habaabinayo bulshada runtii waxa kalentooda hadalkiisa ka mid ahayd haddii isku dhac uu yimaado hebel iyo hebela mas'uuliyaddeeda qaadayo ani waxaan aaminsanahay ciddii maamul bulshadaas maamulaya soo magacaawday oo rabitaanka dadka la fiiriyay oo aan ku dhex jirnay intaas u magacaawdo runtii inay meeshaas dhibaato ka geysan ma qabto laakiin ciddii ugu iclaaminaysa dagaal iyo dhibaato iclaaminayso runtii waxaan aaminsanahay inay tahay qofkaas in lagula xisaabtamo waa dawlad iyo sharci iyo waxbaan aan maxaa la dhihi jiray aan ku dhaqmaynaa anaa ka xoog badan iyo anaa qof si ay rabto hadli karta bulshada ku maran habaayo karta ma jirto waxaan aaminsanahay meeshaas wixii ka dhaca ama istaagtaag ama dhibaato ah oo ka dhacdo ciddii ku baaqday in wax laga weydiiyaa waxaan aaminsanahay marka bulshada in si dhagahooda loo sheego wax wanaagsan fiican maahayn in dagaal haddaan ka soo baxno dhibaato shabaab aan noogu filan in anagu aan runtii aan si hoose aan u wada shaqeyno
bulshada dhigahooda dadka mas'uuliyiinta ah ee sidaasoo kaleentood ah ee role model kala rabo wanaagsan inay noqdaan haddii ay dadka xumaan ugu yeerayaan runtii wax fiican ma aha marka bulshadana wax fiican ha loo sheego annaguna aan gacmaha iyo garbaha isqabsanne aan u wada jihaysan horumar iyo wanaag iyo dadkan deegaanadan cadawga uu ku heystay dhowr iyo 10 sano sidii wax loogu qabalayo maadaama cadawga laga dul qaaday sidayna loo sii daba kici lahayd sidii wax loogu qabalayo hal laga wada shaqeeyo sidaas aan aaminsanahay aad iyo aad u mahadsantiin liibaan cabdulle maxamed liibaan la kibaan Soomaali Cable TV caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar